madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo caawa la kulmay safiirada dalalka Turkiga iyo Norway ee Soomaaliya ayaa sheegay in ay ka go'an tahay in dib loo bilaabo wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Turkiga iyo Norway ku bogaadiyay doorkii ay ka qaateen wadahadaladii hore ee Soomaaliya iyo Somaliland iyo dadaalada hadda socda ee lagu doonayo wadahadaladaasi dib loogu bilaabo. wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya ayaa dhowr goor oo hore dhacay balse wax natiijo ah oo weyn kama soo bixin. qodobka ugu weyn ee hortaagnaa natiijada ka soo baxda wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya ayaa ah in ay Somaliland aaminsan tahay in qadiyada madaxbannaanidu ay tahay muqaddis halka ay Soomaaliyana taagan tahay in midnimadu ay tahay laba taabtaan. marar badan oo ay Soomaaliya iyo Somaliland yeesheen wadahadalo kuwaas oo ay dhexdhexaadinayeen dalalka Kenya, Ethiopia iyo Turkiga iyo Mareykanka ayaa waxay ku soo dhamaadeen natiijo la'aan. Somaliland oo inta badan aaminsan in ay tahay dal la xoroobay Soomaaliya 60kii ayaa haddana waxay aaminsan tahay in ay qaadatay madaxbannaanideeda. waxaana madaxweyne kasta oo yimaada Somaliland oo kor u sii qaada ama difaaca qadiyada shacabka Somaliland ee ay dib uga laabteen Soomaaliya madaxbannaanidoodii. halka Soomaaliya madaxweyne kasta oo yimaada uu aaminsan yahay in ay midnimadu tahay muqaddis Somaliland ay tahay qayb ka mid ah Soomaaliya, taasi oo isku dayo mar walba inuu ku xalliyo wada hadal isaga oo sheega in ay Somaliland qabto tabashadaasna la xallin doono. dowladii ugu dambeysay ee Soomaaliya ee hogaaminayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa ay isku dayday in ay wada hadallo ay garwadeen ka yihiin Mareykanka, Ethiopia iyo Djibouti ay Somaliland la yeelato, taasi oo ay ku doonaysay in ay ku soo afjadho khilaafka waqtiga dheer ka dhex taagnaa dowladaha Soomaaliya iyo Somaliland, kuwaas oo ay Somaliland ku sheeganayso inay tahay dal madax bannaan Soomaaliyana ay ku sheegayso inay Somaliland tahay qayb ka mid ah Soomaaliya. kulamadii ugu dambeeyay oo ka dhacay dalka Djibouti ee walaalaha nahay ayaa waxa ay labada madaxweyne ee Somaliland iyo Soomaaliya ka jeediyeen khudbado halkaas oo ay dhexdhexaadinayeen Mareykanka, Ethiopia iyo Djibouti. waxaana wadahadaladaasi ay ku soo dhamaadeen natiijo la'aan iyada oo ay dad badan aaminsanayeen in dhinaca dawladda xilligaas ka talinaysay Soomaaliya ee madaxweyne Farmaajo aysan wax waqti ah gelinayn, halka dawladda uu hogaaminayay madaxweyne Muuse Biixina lagu eedeynayay inay xoog saarasay sidii ay Somaliland u heli lahayd madaxbannaani, iyada oo Muuse Biixi mar walba u arkayay inuusan Soomaaliya la midoobi karin laakiinse uu yahay dal madax bannaan Soomaaliyana ay ixtiraamto madaxbannaanidiisa. si kastaba ha ahaatee madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo markii labaad ku soo laabtay xafiiska looga taliyo dalka horeyna wadahadalada Soomaaliya iyo Somaliland u gaarsiiyay meel fiican ayaa hadda waxa uu sheegay inuu dib u bilaabi doono wadahadalada Soomaaliya iyo Somaliland isaga oo la kaashanaya dalalka Turkiga iyo Norway. waxaana uu kulankii ugu horeeyay oo la qaatay safiirada labadaasi dal habeenkii xalay ah ka dhacay magaalada Muqdisho, kaasi oo lagu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud doonayo inuu xalliyo tabashada ay qabaan reer Somaliland. dhinaca Somaliland ayaan wali ka jawaabin qoraalka ka soo baxay madaxweynaha Soomaaliya ee kula kulmay safiirada dalalka Norway iyo Turkiga ee uu ku sheegay inuu bilaabi doono wadahadalada Soomaaliya iyo Somaliland. waxayse u badan tahay in ay Somaliland aqbali doonto in dib loo wada hadlo. intaas ayaan ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo Somaliland. kulanti dambe oo xiiso leh.